Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. Daawadayaal ku soo dhowaada Raacayam Channel. Madoobaadka luqad ahaan waa in iftiinka qoraxa ama dayaxa uu qarsoomo daqiiqado ama saacado. Cilmi ahaanna waa markuu dayaxa ka hor istaago dhulka iftiinkii ka soo gaari lahaa qoraxa, ama dhulka uu ka hor istaago dayaxa iftiinkii ka soo gaari lahaa qoraxa. Madoobaadka waxaa loo qaybiyaa labo: qorax madoobaad oo loo yaqaano solar eclipse iyo dayax madoobaad oo loo yaqaano lunar eclipse. Dayax madoobaadka waa markuu dhulka kala dhex galo dayaxa iyo qoraxa, taasoo keenta inuu dayaxa waayo iftiinkii uu ka helayo qoraxa. Ifka dayaxa ma ahan iftiin asaga ka yimaada, wuxuu soo celiyaa ama reflection ku sameeyaa iftiinka qoraxa. Dayax madoobaadka keliya wuxuu dhici karaa maalmaha ay bisha buuxdo. Laba nooc ayaa loo qaybiyaa dayax madoobaadka oo kala ah total lunar eclipse oo ah dayax madoobaad dhammaystiran, iyo partial lunar eclipse oo ah dayax madoobaad haaf ah. Dayax madoobaadka dhammaystiran wuxuu dhacaa markii qoraxda iyo dhulka iyo dayaxa ay hal layn oo toos ah wada galaan, dhulkana uu ku jiro dayaxa iyo qoraxda dhexdooda. Markuu dayaxa madoobaad dhammaystiran ku dhaco waxaa loo yaqaanaa blood moon. Dayax madoobaadka haafka ah wuxuu dhacaa markuu dhulka hor istaago qayb ka mid ah iftiinka qoraxda oo ku socday dayaxa. Dayaxa qayb ka mid ah mugdi ayaa soo galayo, kadibna socodkooda ayaa keenayo inay kala wareegtaan, kadibna iftiinka dib ayuu u soo buuxsamaa ilaa ay bisha sideedii hore ku soo laabato. Markuu dhacayo dayax madoobaadka, qof hadduu joogi lahaa dayaxa wuxuu arki lahaa qorax madoobaad, maxaa yeelay dhulka ayaa ku aadan qoraxda oo ka qarinaya. Qorax madoobaadka waa markuu dayaxa kala dhex galo dhulka iyo qoraxa. Qorax madoobaadka keliya wuxuu dhici karaa markii ay bisha bilow tahay. Qorax madoobaadka saddex ayaa loo qaybiyaa oo kala ah total solar eclipse, qorax madoobaad dhammaystiran, annular solar eclipse, qorax madoobaad dhexda ah, iyo partial solar eclipse, qorax madoobaad haaf ah. Partial solar eclipse waa qorax madoobaadka haafka ah, waa midka ugu badan ee la arko. Waa markuu dayaxa hor istaago qayb ka mid ah iftiinka qoraxda, kaasoo ka dhigaya qoraxda inay halka maqan tahay oo kale. Markuu qoraxa madow soo galo, hooska sidii hore wuu iska beddelaa. Qorax madoobaadka ugu yaraan sanadkii 2 jeer ayuu dhacaa, ugu badnaana 5 jeer. Meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah ayuu ka dhacaa. Qorax madoobaadka waxaa jira ookiyaalo lagu fiiriyo, marna ha ku fiirinin ishaada oo qaawan. Waxaa laga yaabaa inaad indhaha ku beesho ama uu dhaawac xooggan kaa soo gaaro. Total solar eclipse waa qorax madoobaad dhammaystiran, waa markuu dayaxa toos u hormaro qoraxa, dayaxana uu dhulka u dhow yahay. Dayaxa dhulka ayuu ku wareegaa, meesha uu ku wareegayo mar dhulka ayay u dhowdahay, marna way ka fog tahay. Dayaxa weynin uu qoraxda ku qariyo ma lahan, laakiin dhulka ayuu uga dhow yahay. Hadduu qoraxa si dhammaystiran u madoobaado, cirka wuu mugdiyaabaa, kadibna xiddigaha ayaa muuqdo. Annular solar eclipse waa qorax madoobaad dhexda ah, waa markuu dayaxa si toos ah u hormaro qoraxa, laakiin uu ka fog yahay dhulka. Awooddu ma lahan inuu wada qariyo, sababtoo ah dhulka ayuu ka fog yahay, dhexda ayuu qariyaa, geesaha qoraxana way iftiimaan. Habeen dambe waxaa la sheegayaa in dayax madoobaad haaf ah laga arki doono Soomaaliya, hadduu Eebbe ogolaado inay ahaato. Madoobaadka la arki karo wuxuu bilaabanayaa 5 saac iyo 1 daqiiqo. Madoobaadka meesha ugu sarreysa wuxuu gaarayaa 6 saac iyo bar, wuxuu dhammaanayaa 7 saac iyo 59 daqiiqo. Waqtiga madoobaadka waxaa jira salaad sunno ah oo la dukado oo loo yaqaano salaatul kusuuf. Waa 2 ragco oo 4 qiyaam iyo 4 rukuuc leh, waa sida dhammaystiran. Haddii kale waxaad dukan kartaa 2 ragco oo caadi ah.